إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي وإخواني في الله، waxaynu ku guda jirnay duruusteennii musalsalka ahayd ee noo socotay saacadda ka horeysa afurka, aynu kaga hadlaynay mawaadiic kala duwan ee baraarujinta dadka la baraarujinayo lana xasuusinayo maadaama ay ku jiraan bisha Ramadaan wixii ay ku sahay qaadan lahaayeen oo camal oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dhawaan lahaayeen. nimcooyinka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nasiyay aad bay u tiro badan tahay, laa tucaddu walaa tuxsaa, wax la xisaabin kara ma jiro. nimcooyinku addoommada Allah subxaanahu wa ta'ala siiyey uu galay. Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay wa in tacudduu nicmata Allahi laa tuxsuuha. haddii aad tirisaan nimcooyinka Allah subxaanahu wa ta'ala insaanku korkiisa uu saaray wax la xisaabin kara ma aha. bal Ilaahi subxaanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay wamaa bikum min nicmatin, wax alla wixii nimco aad haysataan fa min Allah, Ilaahay xaggiisa ka timid. caafimaadku waa nimco, amnigu waa nimco, waxyaabaha la bixiyo nimcooyinkoo dhan juhdi iyo dadaal qofku uu bixiyey, kartidiisa iyo aqoontiisa uu ku bixiyo laguma kasbado. waa nimcooyin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala addoommada u qaybiyo oo uu siiyo. nimcooyinka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala addoommada siiyo waxaa ka mid ah nimco aad iyo aad u weyn oo runtii la doonayo qofka marka la xasuusinaya nimcadaasi markiiba dareensiinaysa nimcada inay xagga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga timid. waa nimcatu nawm, hurdada. waa nimcooyinku Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu bixiyo oo uu ku galladaystay addoommadiisa dushooda uu saaray intay soo shaqeeyaan oo ay soo daalaan oo jirkoodii iyo waxa weeye xubnihii jirkoo dhan ay isgalaan, intay seexdaan oo hurdada ay seexdeen jirka uu ku nafisayo, naftina ay ku nafisayso. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay waa min raxmatihi, Ilaahay raxmadiisa iyo naxariistiisa waxaa ka mid ah jacala lakum al-layla wan-nahaara litaskunuu fiih. habeenkii iyo maalinkii waxa uu ka yeelay mid aad maalinkiina waxa weeye irsaaqadiisa aad dalbataan, walitabtaquu min fadlih, habeenkiina waxa weeye litaskunuu fiih, aad ku xasishaan oo aad ku degtaan, walacallakum tashkuruun. waxaad mudantihiin marka haddii maalinkiina aad irsaaqadiinii raadsanaysaan, habeenkiina aad xasilaysaan oo aad degaysaan oo jirkiinni uu ku nafisayo, waxay mudan tahay nimcooyinka Ilaahay bixiye marka naxariistiisa ah in aad ka shukridaan oo addoommadu ay gartaan nimcadan habeenka ee la seexanayo inay nimco weyn oo shukrin ay tahay. wuxuu leeyahay aayad kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wajacalnaa nawmakum subaata, subaat baan ka yeelnay, sukuun baan ka yeelnay. addoonku uu saacado xasilayo oo uu degayo markuu xarakaad iyo dhaqaaq tiro badan uu ku jiray joogto ah, wax xayaatadiisii iyo jismigiisii marka suu u socdo oo ula qabsado oo waxqabadkiisii iyo horumarkiisii uu ula qabsado iyo nashaadkiisii iyo firfircoonidiisii wuxuu addoonku u yeelay marka wajacalnaa nawmakum subaatan, midaad ku xasishaan oo aad ku degtaan. oo wadaa'iftii iyo shaqooyinkii addoonkii uu guto waxa uu qabsanayay oo wadaa'if oo shaqo loo diray oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala liajliha u beeray. maxaa addoommada loo abuuray? wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun. wadaa'ifta loo abuuray waa waxaa ka mid a insi iyo jinni inay Allah subxaanahu wa ta'ala caabudaan. caabudaadaas la caabudayo ayaa marka habeenkii looga dhigay xilli ay xasilaan oo degaan
say shaqadii iyo wadaa'iftii sugaysay oo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa ay u gutaan libaasan wajacalna nahaara macaasha marka wuxuu wadaa'iftaas ilaahay subxaana wa tacaala uu addoommada u abuuray darteed waxaa ka mid ah marka aynu u soconno ujeedkeennu aaraarta aynu u soo hormarsanaynay salaatu lfajr salaada subaxa oo jamaacatan lagu tukado fi lmasjidi masaajidka lagu tukado wa hiya salaatun faadilatun cadiima waa salaad aad iyo aad iyo aad u weyn oo uu ogaado addoonku waxa aynu soo guurin doonno oo aynu keeni doonno oo targhiib iyo jeclaysiina iyo waxyaabaha goodiga ee ku soo arooray ah inuu addoonku marka maadaama aynu bisha ramadaan dadku ay soo qaabilayaan masaajidiyadii ay imaanayaan oo cibaadaadka ay badinayaan in ay ka mid tahay salaada subaxa salaadaha aadka u fadli badan qofkii waxa weeye ku rogrogmanaya firaashkiisii habeen walba oo seexday oo ku degay oo ku xasilay ayaa haddana waxaa la leeyahay hurdadiisii macaaneed iyo raaxadiisii uu ku jiray ka soo kac la odhanaya asalaatu khayru min annoom salaada ayaa hurdada ka khayr badan maxaad axaasiistaada dareemaysaa markii wanaaggii aad ku jirtay iyo firaashkaagii iyo gubashaadii aad ku jirtay lagu yidhaahda ka soo kac oo hurdada aad hurdid salaaddii baa ka khayr badan marka taa waxay ku tusaysaa addoonku in la baraarujinayo loo istaajinayo dadka waxa weeye u tartamaya musaariciinta ah ilaahay subxaana wa tacaala guryihiisa daahirka ah nidaagiisa aqbalaya am dadku waxay ka noqonayaan kuwa ghaafiliinta ah oo moog arrinkaasi oo hurdadii subaad iska galayoo waxa weeye ku xeel dheeraaday marka thamaraad iyo miro ka dhalanaya ee fawaa'id ka dhalanaysa iyo fadli ka dhalanaya ayaynu tilmaamaynaa salaadaas aadka iyo aadka u fadli badan awalan fadliga ugu horeeya ay salaada subaxa yeelanayso waxa weeye ina qiyaama alleyli cibaadatun jaliila habeenkii salaatuleylka la tukado waa cibaadooyinka waaweyn ee ilaahay loogu dhowaaday ka mid tahay wa qurbatun cadiima waa qurbo iyo dhowaansho addoonku mar walbu salaatuleyl habeenkii u tukado addoonku alluu u dhowaanaya wa shariicatu rabbaaniya waana sharci ilaahay subxaanahu wa tacaala noo dejiyey waa sunnatu nabawiya waa sunno nebiga noo jeexay oo noo falay in aynu qaadno waa khasladaha aadka u wanaagsan ee addoonka laga doonayo markay dhibaato haystaan markay kurubaad haystaan markuu rabo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu la faqo xilliyada iyo wakhtiyada salaatuleylkay ka mid tahay loogu dhowaado waana madarasada dugsiga lagala aflaxaya iimaanka kordhintiisa ilaa iimaankani wuu ziyaadaa wuuna nusqaamaa madarasada looga baxaya iimaanka kordhintiisa habeenkaa salaatuleylka khalwada iyo la gooni noqoshada addoonku alle keligii uu la gooni noqonayo intuu salligiisa dhigto carruurtii iyo xaasaskii iyo wixii oo dhan intuu ka soo dhex kaco ilaahay subxaana wa tacaala la faqaya oo la koodaya salaadaas aadka u fadli badan wa maca kulli haadihi alkhisaal alxamiid salaadaasi ay leedahay sifaadka wanaagsan ay leedahay haddana ma karno in aanu istaagno waxaad arkaysaa addoommadii in ay ku adag tahay habeenkii inay istaagaan daaqo iyo awood aysan u lahayn intay soo kacaan xataa 2 ragcadood ba allah ka dhiga maxaa keenaya himamka iyo hamiga nagu jira aad dacfi u galay aad u tabardarnaaday waxaa laga yaabaa waxyaabo iska maadiyo adduunyo ah oo qaraa'ib ah qofku inuu u soo kaco haddii shaqadiisa iskeejalkiisa laga dhigo 5 habeennimo inuu gelayo waxa weeye nusaac iyo saacad ka hor buu u soo kacaya u labisanaya taankiisa waqtigiisa soo shaqada u geli lahaa u aadinaya laakiin wadiifadan sacaadadiisa iyo adduunyadiisa oo dhan ay ku xiran tahay waxa laga yaabaa inuu gacan bidixeeyo taana waxay keenaysaa addoonkii caqligiisa aan ka faa'iideysan maxaa yeelay labada wadiifadan adduunyada nafcigeeda iyo koobnaanteeda adduunyadu bay ku egtay laakiin midaan nafci adduun iyo nafci aakhiraba labadaba way ku horseedaysaa sidaa daraaddeeda waxa weeye himamkeenni iyo uu yaraaday cazaa'imteenni ay waxa weeye fariisatay wa thaqulat can ilqiyaami bihi ajsaaduna jirkanagina uusan kari karinba inuu soo kaco oo uu tukado waxaana mashquuliyey waxaasaan noo galay waa adduunye weeye shaqaladna amwaaluna wa ahluna
maal iyo awlaad iyo adduunyo sida loogu jiray ayaa cibaadaadkii noocaa u sharafta badnaa u khayrka badnaa laga mashquulay oo laga tegey taana waxay ku tusaysaa marka in addoommada ay gaabiyeen haddaba qofka sacaada doonka ah oo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadana sacaado iyo nolol iyo wanaag inuu ku helo aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala meel wanaagsan u geeyo ilaa shaqada la qabtaa natiija ka dhalata abaalmarin baa ka dhalata waa inuu qofkii guto marka salaadii jamaacada ahayd ee fajarka subxi ahayd inuu jamaaco ahaan ku guto waxay la dhigan tahay marka meesha lagu soo socdo intaasoo salaatuleylka aan soo sharaxaynay qofkii soo kacay oo salaadii subaxa fajarkii jamaaco ku tukaday fakaannamaa qumta leyla kullahu waxaa lagu qorayaa adoo habeenkii oo dhan salaad taagnaa salaadii sidaa u wanaagsanayd ee fadliga badnayd ee addoonku alle keligii la faqaya salaadaha marka salaada faradka laga tagana salaada ugu fadli badan ay tahay qofkii soo guta ee yimaada salaadii subaxa masaajidka oo jamaacadii la tukada fakaannamaa qumta leyla kullahu nacam kullahu laa bacdo qaar ma ahata habeenkii oo dhan isagoo istaagay oo salaad u taagnaa oo kale ajarkeedii loo qoraya maxaa yeelay malaa'igta wax xisaabinayso noo imaan doonta waxaa caddaynaya in habeenka aad salaadii subaxa intaad u soo kacdo masaajidkii timaado jamaaco aad ku tukato xadiis imaamu muslim uu warinayo ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay man salla alcishaaa fii jamaacatin qofka salaada cishaha jamaaco ku tukada yimaada masaajidkii fakaannamaa qaama nisfa alleyl waxaa loo qorayaa habeenkii niskiisii isagoo salaatuleyl u taagnaayoo kale ajarkeedii loo qoraya qofkii salaadii cishaha jamaaco ku tukada waman salla asubxa fii jamaacatin qofka salaada subaxana jamaaco ku tukada oo soo kacoo masaajidkii yimaadana fakaannamaa salla alleyla kullahu waxaa loo qorayaa habeenkii oo dhan isagoo salaatuleyl u taagnaa yaa odhanaya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam haddaad salaadii cishaha jamaaco ku tukato maxaa labadaa loo doortay salaada subaxa iyo salaada cishaha maxaa loo doortay way noo imaan doontaa waxaa noo imaan doona dadka ka qada salaada subaxa iyo salaada cishaha calaamaadka ay yihiin waxa ay yihiin baa naloo tilmaami doonaa laakiin hadda fadligan ugu horeeya waxa weeye oo aynu ku furfurannay oonu tilmaamnay awalan 10 fadli iyo ka badan baynu tilmaami doonaa hadduu waqtigu noo saamaxo ajru qiyaami leyl baa loo qoraya qofkii salaadii subaxa ilaa rasuulka wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam man salla alcishaaa fii jamaacatin fakaannamaa qaama nisfa alleyl habeenkii nuskiisa isagoo taagnaaday oo salaad u taagnaayo cibaado u taagnaayo salaatuleyl u taagnaa baa loo qoraya waman salla subxa fii jamaacatin qofka salaada subaxa jamaaco ku tukadana fakaannamaa salla alleyla kullahu maxaa ka qaalisan marka furso laba cibaado salaadii subaxu jamaaco ku tukaday habeenkiina adoo tukaday oo lagu qorayo mise waxaad ka mid tahay dadka dayaca khayrkan tirada badan ee ajirkan tirada badan ee lagu qori lahaa bal shuhuudka iyo marqaatiga iyo ka xaadirka iyo ka soo qaybgalka aad ka soo qaybgalaysid aad imaanaysay masaajidkii acdamu ajran min qiyaamika alleyli kullah waxay ka ajar badan tahay adoo habeenkii oo dhan taagnaa salaatuleyl u taagnaa xuduurka aad soo xaadiraysid aad imaanaysay salaada subaxa masaajidka aad imaanaysay ayaa acdamu ajran min qiyaamika alleyli kullah habeenkii oo dhan adoo taagnaa salaad u taagnaa maxaa noo caddaynaya macrifada ilaa waxaynu rabnaa waxaynu ku wadnay shayga aynu sheegaynaba inaynu adiladiisa raacino ka sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam salaada subaxoo qofku salaadii aadka u fadliga badnayd ee habeenkii oo dhan haddii la taagnaa salaad aad loo mahdiye ah salaadaha faradka marka laga tago salaada sunnooyinka salaada ugu fadli badan ay tahay ayaa waxaa la yidhi cibaadadaas addoonku keligii rabbi la taagay gogashiisii carruurtiisii ka soo dhex kacayo ayaa waxaa la yidhaha haddii qofkii soo kaxo uu yimaado salaadii fajarka ayaa ka ajar badan qiyaamka habeenkii oo dhan uu salaad u taagnaayo qur-aan akhrinayay abubakar ibnu sulaymaan ibnu abi xathma ayaa waxa uu leeyahy ana cumar ibnu khataab radia allahu canhu ayaa wuxuu waayey faqada sulaymaan ibnu abi xathma sulaymaan ibnu abi xathma ayuu fi salaati subxi ka waayey
صحابته سياسة آيان أمير المؤمنين أيو أها مدحبو أها ضدك غرك قفك صلاة الصبح اللي جوايا والسويدين جري مية هبل بالورين جري محاو كل عين محايا لصلاة ضدك كهر وضد لي يقان مركا نيكل إرادة أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة وحيري أثر كان وحا ورينيا وكينيا إمام مالك بالسنة صحيح وكوكينيا وحاولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة وحوي في صلاة الصبح أيو كواي مساجد كي وأن عمر غدا إلى السوق كي صلاة أوتو كدي وواي وسنسوتو كان أي عمر سوقي وكاللهي سوى سوقي مريا ومسكن سليمان بين المسجد والسوق وحنا قلنا حيا سليمان بن حثمة مساجد كواي صلاة الصبحنا مساجد كي يسوق عمر أسعدي بقول حيا قرقيس ومسكن سليمان بين المسجد والسوق أي قرقيس كيالا أنت قلنا حيسا فمر على شفاء أم سليمان قبل شفاء أم سليمان ليراده وأبي حثمة هو يدي أيو صامري عمر بن الخطاب قرقي ما دام سوق مساجد مركو كتغي سوق سيمريو قرقينا سوقي مساجد كل حيا أيا واحد إشي سوق قبتي على شفاء أم سليمان أي إشي سوق قبتي فقال لها وحو كيري لم أرى سليمان في الصبح ويدي صلى الله عليه وحو كيري سليمان ساك صلاة الصبح مساجد كمانا أرك فقالت وحيتي إنه بات يصلي وحو باري سؤت كان يا هبينك يوردن هبينك يوردن صلاة تاجنا صلاة الليل بو تاجنا مركي صلاة الصبح سود ويد بحوجا إندا اسكو قبتيو فغلبته عيناه إندي با كحبتي وصلاة دي بعد عفتي قال عمر باوحو يري لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة إن حاضر صلاة الصبح جماعة حاضره أيان أحب كجعلها إلي من أقوم الليلة هبينك يورن إن استغنادو وصلاة أن أتغنادو وحن كجعلها إن صلاة الصبح جماعة كتكذا بحطوا صيا إن يكفل لي بدنتها إن يكفل لي بدنتها أيوه صلاة الصبح هذا ضد بقى بدنا وأركض وانتان طبنك الضمبه قيام الليل كم زي كل صوب حسمية مركو صوب حسمه صلاة السنة وجهد جلنا يا وصوك عيا ودلاليا مركي صلاة الصبح وحليا صلاة الليل كلا جبح ويترجي إلا تكذا والسحورتي الله فريست بحيا صلاة دعاء وننسو جيدي وتاجنا وصلاة الصبح لكن مركي صلاة فجر كي صبح يا برجي بوجي فما صار نقني متكني الصلاة فرض كأن لجربي إن التربية سنفتي سلجربينا وضيعيا وجرجي يسكتوا كنا يوتجيا صلاة السنة أهينا سايد كواك لجا فريسلاي ضمن ما بتكلام ويسكسو كعانو ميرها نتاجنا ده فعوم ليس إن ما رأيت قف حنوسا إنه يهاي واتنا الكاس دبو فديا أما شاكينيا خلاص إذا إلهي سبحانه وتعالى التخفيفي وهدو كرواية استاجي وفريسان كرو والرخصة بدل السي أيها هذا ضياع يا خيرك كجرة مركب حوليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة إن حاضر صلاة الصبح جماعة أيان أحب إلي من أن أقوم الليلة إن هبين كيور من تاجنا وحقيقة في عن إن صلاة الصبح جماعة كنت كذا تاو حين تصي سامركا أجر قيام الليل إنه قفك كهليه وقضب كينكوات ثانيا فضل اللبات وأيلاذا هي صلاة الصبح النور التام يوم القيامة افتين يا نور تامة يا مالك قيام الله صينية ضد بان افتين كاهلي ضد با دربية مضح كل فني ضد با مالي مران وحوي أن دقاقي خري ضد كي صلاة الصبح كنت كني النور التام يوم القيامة نور افتين تام أهل صينية مالك قيامة حديث ورينا يا أبو داود شالباننا أو صحيحنا في صحيح سنة أبو داود وكوكينيو أي رسولك صلى الله عليه وسلم وحوليه بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وحاد بشارة إيسا نبي محمد رسولك أوراني بشر المشائين وحاد بشارة إيسا ضدك أصعنيا أبضين يا جان تودي لك تودي أصعده في الظلم مجديد إلى المساجد المساجد يد أصعده
habeenkii ilaa waa mugdi marka la soo aadaye lugtoodii socodka u badinaya waxaad ugu bishaaraysaa binuuri taami yowma alqiyaama nuur iyo iftiin taam ah inay helayaan maalinka qiyaama maalinka dadku uu nuurka ka go'ayo dad baa nuurkoodaasi iftiinsanaya suuradaha qur-aanka lagu sheegay mashaa'in u badiyaaliya aladiina yuksiruuna almash kuwa u badinaya socodkooda mar walbaba wayactaaduuna dalik caado ka dhigtay ma aha qof laa man ittafaqa lahu lmash maratan aw maratayn qof intuu mar iska soo qaabilay oo mar yimid oo mar labaad maaha qofku lugtiisa iyo jaantiisu u badan tahay oo soo xaadirayo soo soconayo masaajidka imaanaya ayuu rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu leeyahay bashir ilmashaa'iina fi dulami ila almasaajid binuuri taami yowma alqiyaama inay helayaan iftiin iyo nuur taam ah maalinka qiyaama inay helayaan maxaa yeelay waclam ogow biana aljazaa'a min jinsi alcamal waxa aad samaysay wax ka wanaagsan baa lagugu abaalmarinaya ilaahay maana subxaana wa tacaala qur-aanku waxa uu leeyahay hal jazaau lixsaani ila alixsaan ixsaan iyo wanaag qofka sameeya wanaag unbaa lagu sii abaalmarinaya markuu qofkii u baxay salaadii fajarka mugdi ku baxay dadkiina ay hurdaan jazaha iyo mukaafaadka lagu siinayo waa nuur taam ah yowma alqiyaama la siinayo iftiin taam ah la siinaya uu ifsado maalinka mugdiyada ay jiraanoo meeluu qofku ka baxo derbiyadu ay soo xirayaan oo madax uu ku dhifsanayo ayaa abaalmarintii waxaa lagu siinayaa oo mukaafaa'ataka ay noqonayso nuurun taamu yowma alqiyaama maxaa yeelay rabbi buu ateecay awaamirtiisina wuu qaatay maxaa nimco ka weyn marka tii iftiin iyo nuur aad iftiisato lagu siiyo bishaare ka weyn ma jirto qofka ilaahay subxaana wa tacaala nuur iyo iftiin uu siiyey qofku inuusan kadib dhicin waa bishaarada labaad oo aynu ku soconno fadliga saddexaad haalisan oo salaada subaxa ay leedahay waa waxaa ka mid a albaraa'atu min annifaaq waxaa qofka laga tirtirayaa nifaaqa waxaa la yidhahdaa nifaaq waxaa la yidhahdaa afkaaga carabka waxaad ka sheeganaysa ee qalbigaaga iskhilaafsan nifaaq baa la yidhahdaa waana waxa jirooyinka ugu xunxuna insaanka ku dhaca weeye nifaaqaas ayaa laga tirtiraa salaada subaxa nifaaqaas iyo jiradaasay tirtaa qof qalbigiisu saliim yahayo aanan dadka iyo muuqaalka iyo daahirkana iska tusin qalbigiisana wax kala aaminsan ma noqonayo nifaaqa laga tiraya waxaynu ku soo marnay markaynu ka soo hadlaynay qaabka qalbiga loo islaaxiyo iyo marka carabka iyo aynu ka soo hadlaynay calaamaadka lagu yaqaano dadka munaafiqiinta waxaa ka mid ah idaa xadatha kadab markuu sheekaynayo uu been buu sheegaa khasladay leeyihiin calaamaad lagu garta nifaaqa marka uu ballamo ballantiibuu ka baxaa hadduu wax ballan qaado ballantiibuu ka baxaa cahdigii iyo waxa weeye ballanmihiibuu ka baxaa calaamaad noocaasaa la tilmaamay hadday mid ka mida laga helana waa khasla min annifaaq baa la yidhi nifaaqaas marka jirada ku dhaco dadka urkugaalada ah qalbiga ka jiran ayaa nifaaqa laga tirtirayaa براءة من النفاق بري بكن نقول قفك صلاة الصبح جماعة كنت كذا إلهي بلن قاضي رسولك عرب كيس بلن قاضي إن النفاق أوسن كل عين تهاونك فضيسك في شهود صلاة الفجر صلاة الصبح إن الله حاضر فضيسك هذا صفة من صفات المنافقين وصفة علامات كاملة صفات كذلك منافقين qofka oo tahaawun uu kaga dhaco xuduurkeeda iyo ka qaybgalkeeda sifatu min sifaati almunaafiqiin wa calaamatu liahli alghaflati almufritiin waxayna ka mid tahay calaamo liahli alghaflati almufritiin dadka ghaflada ay haysato calaamaadka lagu yaqaanay ka mid taa waxaana tusaya sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa noo marqaati kacaysa oo noo tilmaamaysa qofka aanan xaadirin ee aanan ka qaybgelin inay sifa min sifaati almunaafiqiin ay tahay daliil cad buna rasuulku noogu tilmaamay صوت دير ugu dhawaaqay rasuulku sallallahu alayhi wasallam dhageyso qolka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadith qit'a min hadith
وصوصار إمام البخاري وكينيو أي الرسول كوحليه صلى الله عليه وسلم ليس صلاة مجرته أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء صلاة مجرته أقع ليس بدن منافقين صلاة الفجر كي صلاة عشاء صلاة منافقين أقع ليس بدن مجرته تاد أركت الله وضع صلاة وعليس بدن كاهيستو قلبي قاقتون ومن صفة من صفات المنافقين عشاها هي فجر كمحال لو يري صلاة أقع عليس بدن مجرته أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء صلاة أقع عليس بدن مجرة ضدك منافقين عشاها هي فجركو أثقل عليه من غيرهما ويوكع عليس بدنيه لبا صلاة كله قوة إنه كتجيو أو صلاة لبضان وكتجا علامات ككب بحنيات وتربضن لحمحيا لأن العشاء وقت السكون وقت أنتو إسكحس الجوش دركيس دكتور جورجي عرورتي سو نحجلي ويكون كان يصاب بحدي يراحة ونحجلي والصبح وقت لذة النوم صبحنا ووقت جي هردد يا معان كذي يحل يجوف في عناد وكجرو عليس بقى يدنا أوجا إيمانية وإنه صوكع يكون كان يصاب فراش كيسي جوجشي سو كصوكعه ما صوكع مركه جوجشي سك ما صوكعه إلا لذيذك يا منامك يا معانك يرددي وكل حجري إلا وحكسه إلا مؤمن تقي موي قف مؤمنة وتقية والله كبقي موي قف لك مسوكعية وحنوع عدينيا أبي بن كعب رضي الله عنه صحابي الجليل كان حديث صوصري أبو داود وحسن شالبان حسن وكان في صحيح سنة أبو داود وهو كينيو أي أبي بن كعب وحلي رضي الله عنه قال وحيره صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مال مالمها كمذا أي الرسول كنا تجيي صلاة صبح كنا تجيي فقال وركاس يوما الصبح صلاة الصبح كنا تجيي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح صلاة الصبح مال مالمها كمذا نتجيي فقال مركاس وحي الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مركو كب حيب وحي أشاهد فلان هبل ميمت صلاة ضدبوا مقعابي ما يالوي قالوا لا قال وحويري أشاهد فلان هبل ميمت صلاة ما يالوي قال وحويري رسولك صلى قالوا وحي هذين لا مركز رسولك صلى الله عليه وسلم وحو نوت المامي وحيري إن هاتين الصلاتين لبضان صلاة أثقل الصلوات على المنافقين وصلاةها عليس كبدن ضدك منافقين ولو تعلمون ما فيهما هداد أقال لها إيدين وحلوضها صلاة قدود كجر أجري يا فضل هداد أقال لها إيدين أي الرسول صلى الله عليه وسلم وحويه لا أتيتهما ولو حبا على الركب واد إيمان لها إيدين إذنكو waxa weeye gurguuranayo sida ilmaha yar marka uu waxa weeye dabada ku siqayo kale ama gurguurashada sidaas oo kale idinku salaada iimaan lahaydeen muxuu isku xijiyay salaadii markuu ka baxay salaadii subaxa ayuu dad weydiiyay hebel ma yimid ma yaa lagu yiri hebelna ma yimid ma yaa lagu yiri markaasuu rasuulku wuxuu yiri inna haatayn as-salatayn war labadan salaadood athqalu salawati ala al-munafiqin صلاةها عليس كبدن ويدتك منافقين ولو تعلمون ما فيهما هداد أقال لهيدين وحا أجر يفضل كل حجر الله ولا صلاة ضحضوضة لا أتيتهما ولو حبا على الركب واد إيمان لهيدين إذن كنت ضبطك السقية وسود ذالي لهيدين لكن وحا غفلة إذن كهيسته وحا خير نحت عقاق وحا يالا أيا إذن كما كانوا سبب النفاق باكيني قلبي با جرن صلاة كهارستي وحي تلماميزا صفة من صفات المنافقين صفة كم إذا صفاتك تتك منافقين معي الرسول كايره إن هاتين الصلاتين لبدا صلاة أثقل الصلاة على المنافقين وصلاتها عليس كبدا تتك منافقين ويكون أذكتيتك شديدة بل صحابة ويسيئة كيين أثر بزار أكينيا كشف الأستار كوكينيا شالبانينا وصحيحينيا
صحيح الترغيب وترهيب كوكيني أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه باوحى أوليه كنا وحنا هنا دان صحابة الرسول كنا هاي إذا افتقدنا الرجل في العشاء والصبح هدان روح صلاة عشاء الصبح كوينه أسأنا به ذن ما لها نوح ميجرنا وهي ضدك كهروان اللي يقاني ضدك منافقين تيا هاي قفك كهروان ملحهم بان أمالين جرنا إنه كبيرة ضدك منافقين والصحابة أوفيرس وحوليه هاي كنا إذا افتقدنا الرجل في العشاء والصبح قفك هدان صلاة الصبح عشاء كوينه أسأنا به ذن ما لها نوح ميجرنا ما لها محيطها قفك كهرده وصفات من صفة المنافقين ويو إنه ضدك كبيرة سيد الرسول كؤت المامي صلى الله عليه وسلم وعن تلماني إن أجر قيام الليل لو قرية كو فضلك كوات فضلك الله بعض وحين كنت الماني إنه النور تام وهلي مالك قيامه فضلك السدحات وحين كنت الماني إن براءة من النفاق لقد ترتري النفاق يجرد قلبك كل عضا فضلك أفراد أي صلاة الصبح على هذا الشهادة الملائكة ملائكتي با مرقاتك عيسى شهود waxay uga marqaati kacaysaa warbixin bay gudbinaysaa ilaa malaa'ig baa u qaabilsan amalka aad qabatid intay qaado ayay samada la aadaysaa warbixin bay gudbinaysaa malaa'igtii warbixinta gudbinaysa wax ka qoraysay wa inna alaykum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun malaa'igtii wax qoraysay دفترادي لبا شفتي باي كلا غلان ملائكته لبا خلي ايي اسبدلان وشقده كلا غلان ملائك عصر كي ايمانيسا الا صلاه الصبح كل جوغيسا صلاه الصبح تغيسا marka tukati mid ba soo galaysa ila صلاه الصبح ila casarki laga gaari kula joogaysa malaa'ikta marka warbixin bay gudbinaysa ilaahi subhanahu wa ta'ala ay gudbinaysa isagoo kaga xogagaalsan adoomadiisu waxay ku sugan yihiin haddana marqaati bay u kacaysaa malaa'igtiba intay qoraal qortay geynaysaa waxay leedahay allow adoonkaagu isagoo tukanayaan u tagay isagoo tukanayaan waa ka soo tagay warbixin bay gudbinaysaa ka waran qofkii laga waayay marka marqaatigii malaa'igta iyo qoraalkeeda warbixintay gudbisay daftarkeedii laga waayay رسولك صلى الله عليه وسلم حديث بخاري ورينيو إمام مسلم ورينيو أي رسولك وحليه صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم وحا اسكوكين بدليا اسكوكين عربينيا ومدي مركي تكتمد كلا أي إيمان اسكوكين بدليا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكتي إذن لجوكتي هبينكي صلاة الصبح يا ملائكتي مالك إذن لجوكتي صلاة دي عصرك أيها اسكوكين بدليو ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر وحيكو كل ما يسبدل كودا وقتك يسبدليان شقدي أي كلا قيب سنيان صلاة دي فجر يا صلاة دي عصر كي يسكوك كلا بدليان ملائكتي ثم يعرج الذين باتوا فيكم تيها بينك إذن لبريضي وحيد كقرطي صلاة دي الصبح سو تمد مساجد كي مركا تمد وفجر كي آتو تمد مساجد كي وحكا قرطي ودفتر كي مقع عاقي قد بيسي ثم يعرج ويفوليان ويتقيان صمدي آذيان الذين باتوا فيكم كوي هبينك إذن لبريضي فيسألهم ألا ويديني ملائكتي صلاة دي الصبح انتي تكتي سمالة تكتي وتكتي إلهي سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم إساقوا كقحوا قالسا أيها هذا السؤال ويديني فيقول وحو أرانيا كيف تركتم عبادي سيد وقصوا تكتين حالات دوضو سيدي أهي أدوم ديدي كيف تركتم عبادي أدوم ديدي مركات كسو تقيسين حالات دوضو سيدي أهي ونمحيكو سقنايين فيقولون ملائكتي بجوابي سو وحي أرانيسا تركناهم وأنو كسو تقني الله أدوم دادا وهم يصلون أيوة تكنيا كسو تقني صلاة الصبح يوم مساجد جوجا وتكنيا أيام كسو تقني وآتيناهم مركان أتجينينا وهم يصلون أيام كوتكنيا صلاة عصر كتكنيا حالات دي لبدي ملبا وعوي شهادة الملائكة ملائكتي ومرقاتي قد بنيس وكون مرقاتي كعيسى إنا تكنيسي
wax weydiinaya waa allah subxaanahu wa tacaala ina asaa'ila huwa allah maliku lmuluuk waalmas-uuluuna hum almalaa'ika kuwa la weydiinayana waa malaa'igtii la weydiinayey ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiinayey hamarada ka dhalanaysa iyo faa'iide ka weyn hadday malaa'igtiiba alla agtiisa kaaga markhaati kacdo iyadoo magacaagii qoraysa ilaa waxaynu ognahay inay malaa'igtu qofkii qorayso camalku qorayso salaadihii qorayso wuxuu qabanayay qorayso camalkiisa oo dhan daftarkiisa buuggii gudbinayso hamarada aadka u weyn haniimada aadka u ballaaran wuxuu ka helayaa qofkii salaada fajarka soo tukaday inaysan haniimada aysan gefin marka inay salaadaasi malaa'igtu ay kaa markhaati kacayso ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igtiisu ay ku xusayso ay samadii ku geynayso waxay odhanaysaa waxaanu u tagnay iyagoo tukanaya waxaanu ka soo tagnay iyagoo tukanaya taraknaahum wahum yusalluun wa aataynaahum wahum yusalluun bal haddana qiimaha waxaad qiimaysaa su'aal kaloo la weydiiyey malaa'igta ma jirto ma soomanaa lama odhan ma xajiya lama odhan sadaqo badan miyuu bixiya lama odhan su-aasha ugu horraysay ee qof daftarkii ay gudbisay waxay yidhaahdeen addoommadaydii xaaladda ay ku sugnaayeen baa la weydiiyo ilaahay wuxuu leeyahay kayfa taraktum cibaadii seed uga soo tagteen ay xaaladooda ahayd malaa'igtu maxay ku jawaabaysaa camal kale jawaabka ma bixinayso waxay odhanayaan taraknaahum wahum yusalluun wa aataynaahum wahum yusalluun waxay ku tusaysaa fadliga salaadaasi subaxa ay leedahay iyo fadliga salaada ay leedahay camal kale lama sheegin camalkii ugu horreeyay warbixintiisa la gudbiyey ahmiyaduu leeyahay kuu tilmaamaysa ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala isaguna uu kacayo lama sheegin walam yadkuruu saa'ira alacmaal camal kale lama sheegin daliil waxay u tahay oo inoo tilmaamaysaa calaa fadli lmusalliina min hadihi alumma fadliga ay leeyihiin dadka ummaddaani ummatu muxamed ah fadliga ay leeyihiin wa ana salaata afdalu alacmaal salaadana camallada kuwa ugu fadli badan inay tahay su'aal iyo jawaab baa meeshaa ka dhalatay marka waxaynu maraynay fadliga afraad ee inay malaa'igtu ka markhaati kacayso fadliga shanaad ee salaada subaxa ay leedahay addukhuulu fii dimmati illaah qofka waxaa la gelinayaa dimmada iyo damaanka iyo cahdiga iyo ammaanka iyo xifdiga iyo ximaayada iyo ricaayada adduun iyo aakhiraba ilahay baa xifdinaya looyar uma baahnid looyar uma baahnid haddaad salaada subaxa jamaaco ku tukato wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiis imaamu muslim uu soo saaraya man salla subx qofka salaada subaxa tukada fa huwa fii dimmati illaah wuxuu ku jiraa dimmada iyo damaanka amni gelinta iyo cahdiga iyo ammaanka iyo xifdinta iyo ximaayada iyo ricaayada iyo ilaalinta fi dunya waalaakhira wa xifdi ka weyn ma jiro addoonku u hoosgelay sidaasay dadkii salafka waxay odhan jireen waxay iska ilaalin jireen qofka salaada subaxa soo tukada inay cirdigiisa iyo sharaftiisa wax ka sheegaan maxaa yeele qof ilaahay ilaaliyey oo ximaameeyey haddaad ku xadgudubto maxaa kugu dhacaya marka qof ilaahay magangelye siiyey oo ilaaliyey qofka ku xadgudba adigu caqligaaga suuraysa marka waxaan lagu xadgudbi karin maanta dad waxa weeye quwo iyo baawar sheeganaya adduunyada jooga daday ilaaliyeen oo la yidhaha dadkaasi annagaa ilaalino looma dhowaan karo iyaan lagu xadgudbayn allihii khaaliqu asamaawaati waalardi ahaa qofkuu magangelye iyo amni iyo damaan iyo xifdi iyo ricaayo uu siiyey ka war ku xadgudubkiisu waa ilaali waa fadliga weyn ay salaada subaxa leedahay addukhuulu fii dimmati illah addoonku wuxuu gelayaa dimmada iyo maganta iyo xifdiga iyo ricaayada allah subxaanahu wa tacaala waa sharaf aad iyo aad u weyn addoonkaaga daciifka ah inuu ximaayo ku siiyo magangelye uu ku siiyo
إلهي سبحانه وتعالى كإلاليه ملك العظيم رب الأرباب وملك الملوك وجبار السماوات والأرض إن المجنتي سجشوا وثمرة يمرآد يآد وحكم إذا أرك اللحات وفضلك صلاة الصبح أي لا ذهي النجاة من النار قفك وحال لقبت بادين يا إنه النار قاله وحال لقبت بادين يا إنه النار قاله وحال الله صعده بصوصامه وحال الله شقيسنا يوم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قفكي لقى إلى النار جنة لقى يوان ليباني صلاة الصبح وحيابها لقوها لي كم قفك اللي قبت بادين النجاة من النار رسولك صلى الله عليه وسلم وحو لي من سل البردين لبدا قبو بقفك كذا دخل الجنة جنة قليا حديث بخاري مسلم أي صو صاريا لبدا قبو به عشوهنا وحل انتاد صو قرقا قيت ميدو اسكا قبو ستيو اسكا نساني سو ادالنتايو قبو جيركايو قليا ودباهنتاي راحي هردا ودباهنتا صلاة الصبح وحل قبو هدا صو كعدو waxa weeye u garan kara qofka bardaan uma salaatu al-fajr wa salaatu al-asr baa loo jeedaa isha ma aha waxaan ka wada salaatu al-fajr wa salaatu al-asr intuu seexdo qayluushado ila wadamada islaamku waa laga qayluushada inta la qadayo shaqadii marka laga soo baxo salaada duhurka la tukado ayaa dadku xoogaa seexdaan qayluulasha la yiraahdo hurdada la seexanayo salaada subaxna waxay dhacaysaa waqti qabow salaada casarkana waxay dhacaysaa abrad ma yakunu min an-nahar maalinka xilliga ugu qabow bay dhacaysaa marka rasuulku wuxuu leeyahay man salla al-bardayn labada qabow qofka tukada dakhala al-janna jannadu galaya taa waxay ku tusaysaa marka bal xadiis kala si cadaynayo rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam xadiis imaam muslim uu warinayo lan yali janna nar magalayo ahad qof magalayo salla tukada qabla tuluu'i ash-shams wa qabla ghurubiha markay qorraxdu dhacaysa iyo markay soo baxaysa yaani al-fajr wal 'asr qofka tukada نار مجلي لي رسولك صلى الله عليه وسلم لو هذا حديث كعظيم بشارة آت كأوينا وقفك وحكوك ليس يا أهل صلاة الفجر أعلى وأعلى ما يناله وحوصل ريوك قال يفضي آدو يا آدو وين وين وقفك اللدون إنه دائمه وكقيب قاله معناه حديث قناط المام يا وحيتاي لن يلج النار من عاهد وحافظ على هاتين الصلاتين نار مجليه من عاهد قفك إلالية وحافظ كل جاء قبصد إلالية على هاتين الصلاتين لبضع صلادات نار مجليه ببركة المداومة عليها دائم أجوبتين والنمع آدوين ومد آدوين وقفك وسكا إلالينا نار الله سبحانه وتعالى أرنك التضبات صلاة الصبح أي لا ضهي فضل يدا وحا كمدا النظر إلى وجه الرحمن وحلو قد ديقيا إني الله أركان وجه الله سبحانه وتعالى الضوما الله سيني بشارة سوي إن إلهي سبحانه وتعالى أركان الدنيا ذو لقوم أركيو لكن تطبع الله بشارة إني الله سيني إني أركان مالك قيام وقو إلهي سبحانه وتعالى كون حريستين رؤية يا أركتد الله سبحانه وتعالى في الجنان جنو يقدر أحد يضربه أركيه هي الغاية التي شمر إليها المشمرون كدذلك أي موجين يان أصعدان إن إلهي سبحانه وتعالى الله كل مان وأركان أي أترتم يان تنافس وقليان صدق أي أقليان وحاتان نوع عدينيا حديث صار إمام بخاري مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وحوليه كنا وحان أهين جلوسا نوف وفديا ليلة هبين مع النبي صلى الله عليه وسلم هبين بان النبي قال لفدنا يلعو يسمينا ولا فنني فنظر إلى القمر ضيحيب في رسولك صلى الله عليه وسلم 14 هبين أفر يطبنات يسقع افتين كيسؤال أتاقيها أي الرسول كفيري ضيحة هبين أفر يطبنات فقال وحوير إنكم ضدوا سترون وأن أركيسان ربكم ربكين كما ترون هذا صد ضيحا وأركتان وكالت وأركيسان شك ملك
لا تضامون في رؤيتي اسكمنا عريرين ليسان أركتديسا إلا ضيحا عد والبوي أركتا سوتاغن فإن استطعتم هدات كري كرتان وتعوذي كرتان ألا تغلبوا إننا لإذن كقعد كانوا لإذن كغالب نقنين على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مركي قرح ذو الدعيسي مركي صوب حيزو إن أتكد داشان أنا لإذن كقعد كانين فافعلوا سمية هذا دون إنسان أركتنا الله سبحانه وتعالى سيدا الضيح حاسو كالأدوار كيسان إذن اسكو عريرين فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ مركز الرسول كوح أخرية وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ضد إلهي سبحانه وتعالى أركتدي سلو قديقيا اللهم قديقه وجه الله سبحانه وتعالى إنكم سترون ربكم كما ترون هذا رؤية القمر أي كما أن رؤية القمر تكون للناس حقيقة عيانا بأبصارهم إنه أي كو أركيان وحكا قرصومن أي سنجل ضيح أفريتم ناظر أي أركيان إنه أي كو أركيان فكذلك رؤية الله تكون حقيقة عيانا بأبصارهم إن كو أركيان لكن محال وحر الرسول كو يري وحد كد داشان إن إذن كغالب نقونين صلاة الصبح هي صلاة عصر هذا أركتد الله سبحانه وتعالى دون السلام أركتدي أي سنك قرصومين أضومدي أي أركيان الله سبحانه وتعالى وحين مريني فضلك سديداد صلاة الصبح لقيه ليو الأجر العظيم أبا المرين آد شيء مركا الإهماليه واللي يرادو وحا لقيه ليو وح آد إلهنا سبحانه وتعالى ونوت المامي شيء مركا وح عقلي وصورا كرماه أبا المرين آد باللقيه ليه قياس بالقسينة يا أنا وحكو عبرت مسكح ذا وعلى أدونك مسكح دي سئل لقى شقيسيه شريعة إنه أحاديث وحكوي ماذا مر مثل بالقسينة يا مر قصص بالقسينة يا ضد هوري مر سؤال بالويدين يا سؤال شو التنبيه هذا يا عقلك أبو سجست رسولك وحليه صلى الله عليه وسلم حديث إمام مسلم أورينيه ركعتي الفجر لبعض الركعات صلاة الصبح التي كذا خير من الدنيا وما فيها وحيك خير بديهين الدنيا يا واحد دحيا الله ودح إيجاج ودم بك خير بدين ولا بعض الركعات السنة صلاة الصبح كوري ركعتي الفجر السنة خير من الدنيا وما فيها واحد الدنيا له أي كخير بدين واحد دح إيجاج ودم الدنيا واحد دحيا الله ودم بك في عين كخير بدين هذه لبعض الركعات السنة اللي يري خير من الدنيا وما فيها وحكى خير بدين الدنيا دي يا واحد دحيال لبادي ركعدود فرضكم حين نقونيان marka hadii la yiri labadii ragcadood ee sunnada waxay ka khayr badan yihiin adduunyo dhan iyo waxa dhaxyaal adduunyo maanta adduunyada waxa nimca dhaxtaal waxa barwaaqo dhaxtaal waxa adduun maanta dhaxyaal oo dhan iyo adduunko dhan waxa ka khayr badan hadii la yiri laba ragcadood oo sunna ah tukatay sawira marka labadii ragcadood ee faradku maxay noqonayaan marka abaal marin aad weyn inuu helay سبحان الله سنة الفجر خير من الدنيا ومتاعها وجمالها الدنيا دي متاع دي جمال كده إنك خير بدنتها بكل لذاتها وشهواتها واحد أحيا لودن لبرك عدد الفجر كاه معناها لو يعلمون ما فيها من الفضل العظيم وثواب الجسيم هدي أوغان لهايين ضدكم مركوي إيمان لهايين وكما أيسن دبد عن محير وحن صوش شيخني فضلك صلاة الصبح وحيابها لقوت الماما وحا كمد أهي براءة من النفاق وحن صوت المان النفاق على قتل تري ضدك أوركو قال نماذا عرب كاقا إيا أف كاقا إيا قولك واحد كاقا قولي سي قلبي كاقا أو إسخلاف والنفاق والليرة وحيا القفك إسلام نمو الشيغان إيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وحنا ويكفر إيسا وحنا ويكديد إيسا هداد خلافته مركو والنفاق فعل كاقا قول كاقا إيا هداد خلافته محايا الرسول كان أقرأ وحو لي إن هاتين الصلاتين لبضان صلاة أثقل الصلوات على المنافقين صلاة وليس كبدن ويدتك المنافقين هداد أقال الله هيدين واحد دحيا له واحد إيمان الله هيدين إذنكو قرقورنا يدبضا كسي قياد إيمان الله هيدين حكانا أذانك
shantaa marka waxaan ku dhamaysanaynaa fadliga sagaalaad ee salaada subaxa ay leedahay ajru xajatin wa cumra qofka salaada subaxa tukada ajru xajatin wa cumra ajri qof cumraystay oo xajiyey ajirkiisoo kale loo qoraya bal adigu sawiro qof halkan ka tegey safar galay diyaaradii raacay kacbadii tegey dawaafay acmaashii xajka gutay mina tegey carafa tegey musdalifa tegey jamaraadkii tuurtay intaasuu safarka uu socday ajarka intaa uu la kulmay ayaa waxaa la yidhi waxaa xaqiiqda rasuulku uu noo tilmaamayaa xadiis uu warinayo imaamu tirmidi xasanna uu ka dhigay sheekh albani raximahullah fi sunan tirmidi uu ku keenayo ayaa rasuulku wuxuu leeyahay man salla alfajr fi jamaacatin qofka salaada subaxa jamaaca ku tukada uma qacada kadibna fariista yadkuru allah isagoo alla xusaya dikriga ilaahay la imaanaya xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ay soo baxdo uma salla ragcatayni laba ragcadood tukada labada ragcadood culimmadu laba ra'yi bay ka leeyihiinoo qaarna waxay yidhaahdaan waa labada ragcadood ee duxada ah qaarna waxay yidhahdaan waa shuruuqa waa sunnaa ku jirta oo marka qoraxdu soo baxayso laba ragcadood oo la tukado kay ahaataba qofka man salla alfajra fi jamaacatin salaada subaxa jamaaca ku tukada uma qacada kadibna fariista yadkuru allaha isagoo alla xusaya xataa tatluca ashamsu ilaa ay qoraxdii soo baxdo uma salla ragcatayni laba ragcadood tukado kaanat lahu kaajri xajatin wa cumratin taamatin 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 ayuu leeyahy soo adkaynaya rasuulku u fiir waxa uu leeyahay kaanad waxaa u sugnaatay lahu asaga kaajri xajatin أجر حج أو كلا أصبنا وعمرة أجر إسقو عمريستي أو كلا تامة 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 أو تام وأنا لقى نسخة مني أيها أصبنا هذه أجر إسقو حجي أو عمريستي صلاة دي الصبح قفك إنتو فريست سو يمد فجر كي جماعة كتو كذا كدي من حواه فديو ذكر إله سبحانه وتعالى الليل كدي من قراح ذا مركي صبح ذي لورك عدو شروقي تو كذا وحوهليا كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة وحديث كان أكمد هاي العلماء يرادان من أجل القربات وأفضل الطاعات أي كمتان حديث جليلة إنه مركا صلاة دا الصبح كده دالنا برارو جنتيني آذانكي صلاة دا مغرب كان لقاري أفركا هاي 10 كينمات انت سكو إجي هاي وجزاكم الله خير الجزاء أدو إلهي إدما برينا أجر كصلاة الليل كأنه كان لدونا بإذن الله برياض والله جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.